kubadda cagta waa mid kugu xambaaraysa waxyaabo badan marka aad garoonka ku jirto. dabaaldegyadu waa mid ka mid ah reakshanada ay ciyaaryahanada bixiyaan marka ay goolal dhaliyaan, iyadoo xusid mudan tahay in ciyaaryahanada qaabab kala duwan oo iyaga u gaara ay u dabaaldegaan. Bafétimbi Gomes oo ah xidig Faransa u dhashay waa mid ka mid ah ciyaaryahanada leh dabaaldegyada la yaabka leh, waana qaab isaga lagu yaqaan markii uu goolal dhaliyo inuu jilbaha dhulka dhigto kadibna uu gurguurto. Gomes oo haatan ku sugan horyaalka dalka Sacuudi Carabiya kooxda Al Hilal ayaa aad uga cabsiyay dabaaldegiisa la yaabka leh. inan yar oo ka mid ah inamada garoonka kubadaha ka soo qabqabta kadib markii uu u soo gurguurta dhanka inanka yar oo markii dambe isaga cararay halkii uu fadhiyey ee uu kubadaha ka soo qabanayay. balse Bafétimbi Gomes ayaa markii ciyaarta soo idlaatay la kulmay inanka isagoo guddoonsiiyey funaanadii uu ku ciyaaray. muuqaalka soo socda waa gurguuradkii Gomes iyo cararkii inanka yaraa ee daawasho wacan. خلينا نشوف الطفل اللي يجلب الكور كيف كان خاف من فرحة جوميز وشعر يعني. شوف اللقطة معبرة. شوف خلينا نكمل اللقطة. طيب ايش صار اللي بعد اللقطة؟ ايش صار؟ خلينا نشوف جوميز ايش سوى بعد هذه اللقطة. فهذا في آخر المباراة اتجه لنفس الطفل هذا اللي شوف كان يسأل عن الطفل اللي خاف من فرحتي، اتجه له وقدم له التيشيرت. شكله راح البيت. شوف اللقطة. شوف ليش يقول هو نفس الطفل. ايوه حلو. خاف زيادة. الطفل خايف، ترى الطفل خايف. هو الطفل لا زال خايف بس انه حصل على تيشيرت جوميز في هذه المباراة. والله سبحان. حلو.